عليكم walaalayaal waxaan tusaale ka bixinaynaa macnaha sida loo isticmaalo PHP global variables sida halkan ka muuqata halkan waxaan ku qoray script ama saddex afar line oo code ah macnaha afartaas kaydka macnaha wuxuuna tusaaleynayaa ama aan weydiinaynaa anagoo isticmaalayna PHP serverka aan maaragtay oo faalka anaga aan isticmaalayna waxa uu yahay faalka hadda aan codeka ku qorayna wuxuu yahay marka wax kala maaha waxa aan ugu qoray echo br wax kala maaha waa macnaha farti aan ku kala jijibinaynaa si maaragtay muuqaalkii screenka markii aan maaragtay ku fiirinayno browserka uu noqdo mid qof walba uu arki karo marka bal aanu save garayno sida halkan uga jeedaan markaan faylka ku aadinay wuxuu noqonayaa magaca serverku waa kaydka tusaale marka faylka anaga hadda aan ku shaqaynaynaa macnihiisu waa kaas marka bal aynu badino oon ku darno waxyaalo kale informationna karna sida aan kaasoona tusaaleynaya sida loo isticmaali karo PHP global variables marka bal aanu ku darno tusaalooyin soo socda insha allah okay. waxaanu samayn karnaa kan baan copyaynaynaa waxyaalaha qaar aan bedelaynaa marka insha allah haddii ilaahay yiraahdo marka si ay noogu sahlanaato intaan maanta oo dhan ku celcelinayn qoritaanka waqti dheer u qaadanaya marka waxaan bedelaynaa meesha marka waxaan leenahay magaca browserka meeshaan aan bedelaynaa marka waxaan leenahay magaca browserka waa aalada loo isticmaalo in lagu galo maaragtay internetka marka halkaas aad isbedelayso marka waxay noqonaysaa halkaa global server bracket then waxay noqonaysaa http user agent so user agent ayay noqonaysaa marka user agent inta kale codeka waxaan ka bedelaynaa maana because markii hore waxaan jeegaraynay faylka aan isticmaalayna wuxuu hadda waxaan jeclaynaynaa browserka aan isticmaalayna wuxuu yahay marka waxaan u bedelnay uun muuqaalkii habkii aan maaragtay u present garayn lahayn way wax kale ma aha aanu save garayno haddana aan refresh ku samayno pageka sida halkan uga jeedaan haddana linekan codekii yaraa hadda aan abuurnay wuxuu abuuray linekaas kaasoo ah macnaha inaan isticmaalayna inuu yahay chrome marka wuxuu noo sheegayaa browserka isticmaalayna wuxuu yahay bal aynu ku darno macluumaad kaloo zaa'ida aan sii wadno haddana mar labaad aan qorno marka maxaan ka hadlaynaa haddii ilaha yiraahdo aan ku daraynaa waxaan ku daraynaa hadda oo ku xiga kaas magaca softwareka serverka magaca softwareka serverka waa then waxaan bedelaynaa meeshaas wuxuu noqonayaa server software ayuu noqonayaa server software inta kale waxaan ka taabanaynaa male marka waxaan leenahay barnaamijkeena aan bas waxaan weydiinaynaa waxaan tusaaleynaynaa noo sheeg serverkan anaga aan isticmaalayna software ku yahay marka aynu save garayno haddana aynu fiirino refresh ku samayno pageka sida halkan uga jeedaan magaca softwareka waa apache ayaan isticmaalaynaa oo window 32 ah open ssl php 7 way software aan isticmaalaynaa marka macluumaadkii oo faylkii markii hore aan isticmaalayna waqtan ugu horeeya aan sheegno halkan ku qoran kan ku xiga wuxuu ahaa browserkii hadda waxaanu sheegnay serverka aan isticmaalayna softwareka u isticmaalaya marka bal aan kusii darno tusaale kale macluumaad kale oo aan rabno inaan kasoo saarno meesha misalan waxaa ka mid ah aan ku darno waxaan isticmaalaynaa waxa la dhaho server protocolka macnaha protocolka aan isticmaalayna wuxuu yahay magaca server protocol server protocolka wuxuu yahay marka wax kale ma halkaasaan bedelaynaa marka waxaan leenahay server protocol kana bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa server protocol control s aan save garayno bal aynu tijaabino linkii kaloon ku darnay waxa uu yahay
server protocol so wuxuu leeyahay ayuu ka cabanayaa inaan qaladnay marka aanu fiirino bal wuxuu yahay okay waa ujeedaa meeshaas waxaa ku jirto zaa'ida marka bal aan ku celino waan saxnay hadda aan refresh ku sameyno marka sidaad ujeedaan magaca server protocolka waa http/1.1 so waxaan hadda taas kale ayna tusaysaa macnaha global variableska inay fara badan yihiin oo siyaalo badan loo isticmaali karo oo aad ku soo qaadan karto si aad u ogaato macluumaad fara badan programka markaad qoraysid marka sababahaas way sababahan inay tusaaya hadda bal aan ku daro mid kale wixii aan ku dari karno okay waxaan ku daraynaa magaca codsiga aynu sameynayno magaca codsiga aynu sameynayno wax kale ma aha waxaa jira wax la dhaho protocol la dhaho request method wax kale ma aha serverka seen wax u weydiinaynaa weye sida aan wax u weydiinayno noocay tahay ayaanu programka weydiinaynaa marka bal aynu fiirino waxa ay noqoto request method waa maxay magaca codsigaan isticmaalayna control s waan save gareeyay bal aanu ku celino haddana bal aan refresh ku sameeyo waa kaas magaca codsiga aynu sameynayno waa get haddaad xasuusataan hore waxaan usoo sameynay waxa la dhaho laba codsi ayaa jiro php-ga mid la dhaho get iyo post si fiican baan u baran doonaa markii aan bilaawno inaan form processing aan sameyno markaan formka codsiga qofka isticmaalayaasha ay soo gudbiyaan aanu baranayno aan si fiican u ogaanayna marka hadda codsiga aynu sameynayna waa get method macnaheedu waa kaas aan ku dara mid kale midkaan tookadan ku daraya wax kale maaha waa aan ku daraynaa wax la dhaho dekanoo kale aan soo qaadan karnaa koobiyeynayaa kaasaan rabaa inaan bedelo isaga ma raba inaan isticmaalo laakiin halkan waxaan ka dhigaynaa halkan waxaan ku bedelaynaa request time macnaha serverkan waxaan weydiinaynaa waa maxay waqtiga aan ka codsanay in qofkaas sameeyo misale haddaad rabtid inaad ogaatid userku markuu formka soo gudbiyey ama codsiga soo gudbiyey asagoo isticmaalaya website-kaagiisa maaragtay meesha ay contactiga ay tahay haddaad rabtid waqtigu informationka soo gudbiyey habkani waa hab aad ku ogaan kartid magaca waqtiga qofka userku informationka kusoo gudbiyey iyadoo la isticmaalaya servertanka marka waxa weeyaan magaca ama waqtiga codsiga lasoo gudbiyey magaca waqtiga codsiga lasoo gudbiyey waa marka hadda waxaan ogaanaynaa waqtiga aan serverka informationka markuu userka soo gelinayay waqtiga ay ahayd ayaan rabnaa inaan ogaano hadda waqtiga la joogo way kolley marka taas waxay ku xiran tahay mar walba serverkaaga meesha uu ku keedgaraysan yahay hadduu serverkaagu America yahay ama Australia yahay ama Soomaaliya yahay ama meel kale yahay saacadda local waqtigaas hadduu serverku adjust garaysan yahay waqtigaas ayuu ku siinayaa bal aynu hadda refresh ku sameyno si aan u ogaano waqtiga codsiga la sameeyay waka saa ujeedaan waxaasoo dhan waa in minutes weeyaan seconds marka haddaan rabno inaan u bedelno saacad waa inaan tiro ku dhufanaa laakiin tirooyin fara badan ku dhufanaa sida minuteskii wixii dhan saa u kala saacno marka waqtigii wuxuu ku siinayaa as a time stamp camal marka that's why waqtiga uu noo siiyey waxaa laga yaabaa inaad isleediin waa maxay 15325610006 waqti ama jiro laakiin tiradan waa in secondskii oo la isku dardaray laakiin tirooyinka haddaan rabto inaan u kala jijibino inaan time ahaan u muuji karayno waa inaan tirooyin fara badan ku dhufanaa daqiiqadii waxay tahay secondkii wuxuu yahay maalintii waxay tahay then markaas waqtigu waa noqonaya haddii ilaahay yiraahdo marka halkaa waxaanu kusoo gabagabaynay sida loo isticmaalo global variable serverska masalan all tusaalahan waa adiga qiyaastii waa 6 tusaaladood oo fiican oo aad ku ogaan kartid haddaad rabtid inaad macluumaad ku ogaato sida loo isticmaalo global variable bal waxaan ogaan doonaa insha Allah casharka soo socda haddii ilaahay yiraahdo mahadsantiin